waa jirtaa bini aadamku ma cabasho waayo, laakiin iminka waxaa laga yaabaa inaad leedahay sharcan waayo iyo lacag ma haysta iyo laakiin waad caafimaad qabtaa. bal dhakhtarka tagoo dadka maalqabeenka ee buka weydii maxay u baahantihin. waxaa laga yaaba waxay hanti haystaan oo dhan inay siisan lahaayeen in maxay wadnaha xanuunaya inuu ka kaco, laakiin adigu wadnahaaga iska bugbugle haben iyo maalinbaa bamkaa shaqaynaya markaad hurdiya markaad maba ogid, wax weynba kulama aha. caafimaadka maxaan ku haysanaa waa gaajoorayna abad la soo taagantay. yacni markaad nicmada dareemi weydo inta yara nuqsaantee ku haysata unaad dareento. bini aadamku waa caynkaa. bini aadamku qof way adagtahay inaad aragto qof bini aadam intuu kuu yimaado wuxuu nimco helay kaaga warramaa. qof waliba bal warran marka tiraa wallahi maanta waxay ku dhacay moogtay buu ka bilaabaya. yaad ka ashtakoonaysaa ma rabbiga. qof waliba wuxuu wadaa un inta yar ee mashkiladee qabsatay ayuu ka warramaya. laakiin asalku wuxuu yahay maxay? nicmadaa badan ee ilaahayna siiya inaynu ka mahadnaqo. marka waxa weeyaan salaadda markaad tukatay waxaad leedahay ilaahayow wixii aad xaq iga mudnayd xaqa tuqaatihi lama imanin, intaasaan la imay ilaahu dembigayga dhaaf baad leedahay. istikfaartaad la imanaysa macneed waa caynkaa. cibaadaadkao dhan baa qur-aanku inoo tilmaamaya inaynu ku kabno in badanoo ka mid a. maalan uma afiidu min xaysu afaada annaas wastakfiru allaha ina allaha gafuuru raxiim. carafa oo maalmihii ugu khayr badnaaya oo maantao dhan dadku waa bannaan taagnaay oo ilaahay baryayey ayaa ilaahay wuxuu yidhi markaa carafo ka soo dareertaanna halka dadku ka soo dareeraya ka soo dareera, dabeetana wastakfiru allaha istikfaarna ku dara baa la leeyahy. ayuha alaxiba, ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka saalixiinta ah kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun baa ilaha yidhi. habeenkii in yar bay seexdaan baa la yidhi. dad saalixiin oo ilaahay ka warramo jannada cuyuunteeda iyo nicmadeeda haystaa. kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun. maxaa lagu xigsiiyey? wa bilasxaari hum yastakfiruun. habeenkii waa taagayin baa la yidhi. wakhti suxuurka markay gaadheen salaadda subax soo dhowdahayna istikfaartay bilaabaan. iyagoo caawo oo dhan salaad tukanayay ayay markaa waxay dib u bilaabaan maxay? istikfaarta. ilaahay wuxuu ina leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik. bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diinta islaamiga inuu hirgeliya u dadaalayay, jihaatamayey. wax kasta oo qof bini aadami soo maro nolosha uu soo maray, hadday dhulkiisoo laga saaratay, hadday dagaaltay, hadday gaajatay, hadday rabshad, wax kastoo bini aadam ku dhaca ayaa soo maray. dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi marka aad guusha gaadho ee ilaahay nasrigiisu kuu yimaado ee aad aragto dadkoo diinta koox kooxu soo gelaya, istikfaarta badsa baa la yidhi. wixii aad soo shaqaysoo dhan istikfaar ka dabage. saa daraaddeed baa suuraddii u dambaysay qur-aanka soo degtay ka suura ahaan waa idaa jaa, suurad isku dhan aayadaha soo degay iyada dabadeed, laakiin suura kaamila dabadeed ma soo degin. ilaahay wuxuu leeyay idaa jaaa nasrullaahi waalfatx. haddii uu kuu yimaado ilaahay guushiisa iyo furashada rabbi hadday kuu timaaddo, oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja, oo aad aragto dadka oo koox kooxu soo gelaya diinta. bini aadamku markuu guulaysto muxuu sameeyaa? kallaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu wuu kibraa inta badan. bini aadamku markuu nicmada hele wuu kibraa. bal aadanaha u fiirso, maalintii xorriyadda, maalintii caynkan maxay dowladuhu sameeyaan? xooggooda iyo ciidankooda iyo khudbado wadaa ah waa halgannay baa la qaadaa, de badhbadhaadhnaydaa la qaadaa, soo maaha? cid istaakfuralaysato ilaahay u toobad keenta miyaa aragteen? nebi maxamed markuu maka furanayay, makadii laga saaray, wuxuu soo galay isagoo neefku fuushanaa dushiisa madaxiisu uu gaadhi ku dhadhow yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigaya. ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho, waa goorma? gaaloo dhan markaad ka guulaysato ee diinta ilaahay kor yeelo, ee dadku ay diinta u soo galaan koox koox. awal qof baa soo islaamayey. wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja. aad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya, markaa maxay samey baa ilaahay yidhi? maxaa ku xiga? fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba. ilaahay u tasbiixso adigoo xamdigiisa ku dheehaya. subxaana allaahi waa nafyi, waa ilaahay oo aad xumaa ka hufayso. alxamdu lilaahi waa ammaan, waa ilaahay oo aad ammaan oo dhan u sugayso. istikfaarkuna waa adigoo dacfigaaga sheeganaya. idan
ammaan halkii u dambaysay weeyaan ilaahay waxaanu cuntaminna inaad naqaa'isoo dhan ka reebtid maxaamidda kamaal oo dhanna aad u nisbaysid kadibna aad dacfigaaga qiratid oo tidhahdid anna waa toobad keenaya anna waa istikfaarsanaya oo waa toobad keenaya saasaa nabigii la faray calayhi salaatu wasalaam walidaalika markay suuraddani ku soo degtay kadib wuxuu odhan jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma akfir lii ayuu rukuucda iyo sujuudda iyo odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba acmaasha acmaal kalaa lagu kabaa maalan maxaa layna yidhi soonkii markaa soontaan zakaatulfitri haddana bixiya zakaatulfitrigaasi maxay keenaysaa baa layidhi jabraani naqs wixii ramadaanta dhexdeeda idinka dhacdhacay dunuub ama nuqsaan ku dhacay ku kaba baa layidhi salaaddii baad yara sahwiday maxaa layidhi ka dabagee laba sujuudood aad ilaahay foodda dhulku u dhigayso waa jabraanu naqsigaagii baad dib u kabaysaa soo duuduuba ayuha alaxiba darsigaygani wuxuu ku kooban yahay markaa kow inta wax qabanaysaa yaan cujbiyo quruur ku dhicin ilaahay baa og inta la aqbalaya kaasi waa mid dadaalka inaad badiso oo haddii alla wax kaa aqbalo waxa la hubaa camalka kalena inuu kuu hagaagayo adduunya aakhiraba inaad guulaysanayso acmaashu marka in la aqbalaba inta kale alla sii fudaydiyaa saalix ka sii dhiga se waxaynu u baahannahay laba halba inaynu ku dadaallo kow qadiyatalcilmi inaynu ku dadaallo waxa waxaynagaga asaxayaa waa dhib 40 sannadood inaad tukanaysay ilaa haddana aanaad aqoonin salaaddu maxay ku burtaa ama maxaa lagu aqbalaa aad garan waa dhib mas'alat alcilmi camalkaad samaynayso inaad isku dayda aqoon inaad u yeelato ka labaadna waa maxay waxyaabaha camalka ama buriya ama nuqsaamiya ama u diida in la aqbalo inaad ka jafi kartid isku dayda intaad ka jafi kartidba inaad ka jaftid ka saddexaadna istikfaarta iyo tawaaduca iyo rabbi isu dhuldhigiisa inaad badsatid ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala intaynu la nimayna allah inaga aqbalo acmaasheennu cinda allahi tii maqbuula in alla ka yeelo waxaa acmaasha burinaya in ilaahay subxaana wa tacaala inaga faydo qalbigeenna in ilaahay subxaana wa tacaala nadiifiyo saafi ka yeelo kuwa muslima oo islaamnimadoodu dhabta ku dhinta